ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shaqo ka joojin ku sameeyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isagoona xilkaasi in uu shaqada sii wado u magacaabay Bashir Goobe. sidoo kale markii uu soo saaray warkaasi ra-iisul wasaaraha waxaa ka soo daba saaray warqad kale madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya taas oo warqadaasi oo markaa Fahad Yaasiin ugu baaqaysa in uu shaqadiisa sii wato. haddaba ra-iisul wasaare Rooble awood sharci ma u leeyahay shaqa ka joojinta agaasimaha NISA ee Fahad Yaasiin? waa kuwan qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed oo arrintaasi falanqeynaya. bismillahi raxmaani raxiim. markaa fiiriso sharciga ama dastuurka Soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sharci iyo xaq labadaba isaga u leh inuu shaqada ka joojiyo xataa inuu shaqada ka qaado. madaxweynaha kaliya waxaa laga rabaa hal wax markii golaha wasiirada oo ugu sareeyo prime ministerku ay go'aan ku gaaraan in taliye la magacaabo ama taliye laga qaado buu madaxweynuhu wuxuu yeelanayaa xaqa ah in isagu uu yahay qofka sameynaya operationka ama magacaabid ha noqoto ama ha noqoto ka qaadid. laakiin golaha xukuumadda ayaa leh waxaana u sareeya prime ministerka. sidaa darteedna prime ministerka ayay ka imaanaysaa oo soo ogolaanaya in taliye hebel laga dhigo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ama taliyaha ciidanka booliiska oo kale. marka sidaa darteed waxaan anigu qabaa sharciguna uu qabaa in wax walbi ka bilaabmaan oo xataa ay ku dhamaadaan marka administrative la sameeyo. ilaa madaxweynuhu warqaddu qoraya kaliya magacaabidda baa la siiyey kaliya iyo shaqo ka qaadida, laakiin awoodda waxaa leh oo soo keenaya oo soo dhirinaya oo soo hufaya oo soo kala haadinaya waa prime ministerka. waxaa sidoo kale dadku ay isweydiinayaan kiiskii galka baarista dilkii Ikraan Tahliil oo uu gacantiisa ku jiray Fahad Yaasiin mar haddii xilka laga qaaday 48 saacna ka hor loo qabtay halkee buu ku dambeyn karaa? wax badan baa marka khaldan, wax badan baa qarsoon, wax badan baan laga warhayn. arrintaas ayaa waxay keenaysaa arrintaanu inay noqoto arrin jiitanta, arrin cududeeda iyo xooggeeda iyo karaarkeeda leh oo yeelan kadha dhinacyo badan u leexan kadha hab qabiil, hab dowladnimo, hab mucaarad, hab international. sababtaa dowladda iyo karaamadii wadanka iyo khaasatan sirdoonka ayaa arrintaas meel kaga dhacaysa. marka aniga waxay ii muuqataa arrintaas arrin sahlan inayan ahayn, una baahan arrin si degdegana wax looga qabto, si macquulana wax looga qabto oo aan ahayn ku soo bood. prime minister ruuxiisa waxaa laga rabaa inuu arrintan baaro, inuu sameeyo baaris. shaqadii hadduu ka joojiyey oo nin kale hadeer magacaabay dee arrintaas intii uu samayn karo weeye.